horta cudurkan covid-19 loogu magac daray wuxuu noqday mucjiso ilaahay noo soo diray. ganacsiyada soomaalidu horta dhinac walba way ku jiraan, amba industry walba way ka ganacsadaan, laakiinse waxay u badan yihiin ganacsiyada fudfudud amba kuwa retailska la yidhaahdo, dukaanley ha noqoto, makhaayadley, coffee shop iyo waxay leeyihin xarumo dadka waaweyn iyo carruurta lagu hayana aad bay ugu badan yihiin. kuwaasina waa kuwii u horreeyey ee la xidhay, maadaama meelahaasi ay dadku iskugu yimaadaan wax haba yaraatee kala socda ama ganacsi yar ku weyn iyo ku fududba way wada istaageen, waxaana la galay xaalad degdega. waxaa quraatoo ka badbaaday dukaanada laga adeegto amba raashinka laga iibsado iyo farmasiyada dawooyinka waxaa laga qaato, intaasoo quraata ayaa ka badbaaday. dhibaatada ugu badan ee ganacsiyadiina soo gaartay maxaa ka mid a marka? ganacsiyada horta dhibku soo gaaray number one waxa weeyaan ganacsiga ay ku jiraan soomaalidu, maadaama uu yahay ganacsi yaryar oo qutal daruuriga maalinle ay tahay, sida makhaayadaha, sida coffee shopyada. waxa weeyaan waxay ku xisaabtamaan bishii waxaa soo gala, wiiga waxaa soo gala. marka haddii taa ay joogsato waa dhulka dadka kujiidasa. marka waxay ahayd dadka ugu horreeyey ee aad ay u taabsatay, maadaama ay ku xidhnayn bangiyo waaweyn iyo investero amba dad maalgeliya ay jirin oo iyaku naftooda ku tirsadaan, iyo wiigii waxay sameynayaan, bishii waxay sameeyaan. markii taa la joojiyey waad garan kartaa dee arrintaasi ay ku dhacday. cabdiraxmaanow, waxaa soo baxaysay in tirada dadka cudurkaasi uu ku dhacayo ee gobolkaasi ku sugan iyo kuwa u dhintayba ay sii kordhaysay. haatan ganacsiyadiinnii baad ka cabanaysaan in dhibaatooyin badan ay soo gaareen oo shaqo badan aanay jirin. haddii xaaladda sidaa ay kusii socoto maxaad filaysaan? horta gobolka minnesota wuxuu ku jiraa gobolada ugu fiican amba ka badbaaday xanuunka faafintiisa. maanta oo la joogo waxaa quraatoo lahayaa ilaa 8,000 oo qof oo 4,000 kamida ay ka bogsadeen. marka anagu hadday noqoto dhinaca xanuunka waxaad moodaa inaan nahay dadka ugu fiican amba raacay sidii xanuunkaasi laiskaga ilaalinayay. marka xaggaasi ilaahay baa naga badbaadiyey, aad baan u fiican nahay. laakiinse waxaad na saameeyo quraata sharciga in la wada xidho businessyada maraykanka oo dhan. taasina waxay na siisay fursad ay dadkeenu ay ku badbaadaan oo ilaahay mahadibeen. sanadka maantana qofkii ka badbaada isagoo caafimaad qabo ilaahay dhaafiyo waa qof macaash sameeyo kale ayuu la dhigan yahay. ganacsiyada soomaalida ma jirta miyaa cid garab istaagtay oo dhaqaale ku kaabaysa? anigu horta waxaan ku jiraa guddi arrimahaasi ka shaqaynayay sidii dadka soomaalidu ay u heli lahaayeen waxyaabahaasi. laakiinse nasiib daro dadka maraykanka uma la midnahay. waxaa quraatu ka faa'iidaystay 30% dadka maxaan qoray small businesska arrimahaasi ay dawladdu sheegtay amba gobolku sheego. nasiib daro 70% weli hadda way sugayaan amba waxay u maqan yihiin amba wax ay ka hor dhamaatay. marka qofkii ilaahay caafimaad uu siiyey kolley markay la furo uu kasoo kabmi karaa, laakiinse kabitaanka amba lacagahaasi aad dadka meelahaasi ay siyaasiyiintu ka sheegaan 30% wax ka yar ayaa ka faa'iidaystay. haatan ganacsiyadiinni waxay xiran yihiin muddo toddobaadyo ah. haddii marka ay xaaladdaa sii socoto oo dhaqaale uusan idin soo gelin, ganacsi aadan samayn, guryaha iska joogtaan, maxaad kaga gaashaaman kartaan in dhaqaalihiinna uu burburaba? horta dhaqaalaha iyagu aad buu u burburay. maraykanku waa waddanadooda adduunka ugu xoog weyn. marka shaqala-aantu ay gaadho 25% waxa weeyaan dhaqaaluhu wuu burbura ka dhigan tahay. adduunka may soo marin dhibaatayntan ka weyn. marka way jirtaa dhaqaaluhu wuu burburay. businessyada qaarkood orid way xidhmeen, amba kuwa soomaaliya amba kuwa ajnabiya oo dadkaasaan la mid nahay. laakiinse maadaama aan dad muslim nahay rajadu way furan tahay, maadaama oo caafimaad qabno oo beritoole aan shaqaysan karno. hadduu cudurkan dhammaado bal rajadiina waxay tahay miya in aad ganacsigiini dib usoo ceshan doontaan oo halkii ka bilaabi doontaan? sida aan ogahay way adag tahay in businessku noqdo sidii uu ahaa intuu bilaabmin cudurkan. maxaa yeelay de dad dhaqaale xumaa soo gaadhay. meelaha qaarkoodna inay customerku ay soo noqdaan dabeecadihii hore way aad yay u adag tahay, sida makhaayadaha oo kale, sida coffee shopyada oo kale, maadaama iminka ay dadku xiran yihiin mask, maadaama ay dadku kala shakisan yihiin, maadaama aan la ogolayn in dadku ay meelo iskugu yimaadaan iyagoo lambar badan. marka businessyada ku xidhan dadka badan horta aad bay u adag tahay. laakiinse laga yaabaa inay noqoto sanad ilaa 2 sano ilaa 3 sano halkii uu ahaan jiray dhaqaaluhu kusoo noqdo. taasina waa rajo ilaahayna inoo rumeeyo.